waa hooyo Soomaalida ku nool qaaradda Yurub gaar ahaan waddanka Austria ilmaheedii oo 5 jira ayaa khaniisnimo lagu tarbiyanaynaya kadib markii ay ka dacwatayna waxaa loo sheegay in wiilkeedu uu doortay uu choice-ka isagu leeyahay hooyadani ayaa markii arrinkaasi loo sheegay iyo dhibaatada iyo fusuqa wiilkeeda lagu tarbiyadanayo waxaa ku dhacay xanuunka macaanka wadooyinka waddankaasi Austria qaaradda Yurub ay ku dhacaysaa xaaladdeeda caafimaad ayaa laga soo deyrinaya haddaba maxay tahay sababihii hooyadani looga qaatay ilmaheeda yar ee 5 jirka ah hooyadani oo muuqaal soo dhigtay barteeda YouTube oo aanu idin dhigi doono qaybta hoose linka description-ka ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadaynaa iyadoo faahfaahisay sidii ay ula dhaqmeen kooxahani iyo sababihii ay uga qaadeen ha yeeshee daawada muuqaalkan leegaree si uu gaadho bulshada Soomaalida loona caawiyo hooyadan kusoo dhawaada barnaamijka waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool qaaradda Yurub gaar ahaan waddanka Austria hooyada Soomaalida ilmaheeda qaniisnimo loo tarbiyanayo waa hooyo Soomaaliyeed oo sheegtay in cunugeeda laga qaaday laguna barayo khaniisnimada xarun lagu hayo caruurta hooyadan oo muuqaal soo duubtay oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba u sharaxaysa dhibaatada haysata ayaa sheegtay in ilmaheedii oo jira 5 sano la barayo khaniisnimada laguna tarbiyadaynayo khaniisnimada markay u cabato socialka qoryaha caruurta qaatana lagu dhahay ilmahan isaga ayaa doortay khaniisnimada doorashadiisa isaga ayaa u xora waa ilmo 5 jira oo aan aqli badan lahayn waxa wax lala yaabaa ilmo yar oo 5 sano jira oo doorasho iyo maskax ku filan aan lahayn la dhaho isaga choice kale oo doorashada leh noloshiisa doorashadiisana waa u xor hooyadan ayaa sidoo kale lagu dhahay haddaad Austria joogtid waa inaad dhaqankeeda qaadataa haddii kale inaad joogto maaha waa inaad iskaga tagtaa wiilkan waa muwaadin 5 jira oo u dhashay dalkan isaga ayaa doortay isaga ayaa kaaga xaq badan hooyadani oo ilmeynaysa soona fadhiisatay barteeda YouTube iyo Facebook-ba ayaa ku faahfaahisay sababihii hooyadan looga qaatay iyo intay qoryahan isla daaladhacayeen hooyada Soomaalida waxay ku nooshahay waddanka Austria ee qaaradda Yurub hooyadan ayaa sanadihii u dambeeyay ku noolayd waddankaasi iyadoo waddankaasi weydiisatay magangelyo doon kadib markay ka soo carartay colaadaha sokeeye ee ka aloosan dalkeedii hooyo ee Soomaaliya haddaba hooyadan Soomaaliyeed oo ka warbixinaysa xilligii laga qaatay sababihii looga qaatay iyo waxyaabaha waalida ee maskaxdaadu diidayso ay kala kulantay qoryahan socialka ee ilmaha qaata ee ku nool kana dhisan guud ahaanba wadamada reer galbeedka gaar ahaan qaaradda Yurub haddaba hooyadan oo ka sheekeynaysa xaaladda wiilkeeda yar ee khaniisnimada lagu tarbiyadaynayo iyo waxyaabihii ay kala kulantay qolyahaasi social media bilow ilaa dhamaad muuqaalkan ay soo dhigtay barteeda YouTube waa kan ee nala yar daawo fadlan hooyadan waxa ay leedahay YouTube channel ay bulshada Soomaalida xaaladda wiilkeeda kula socodsiiso ee fadlan subscribe u saara hooyadan waa kan ee bal nala yar daawo qisada oo dhameystiran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة الإسلام كصوماليات ميل كستو أجوكتان وحد كو سلام يا سلامة إسلام كحلي كستو إدين تهينا وناكسن حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله بسم الله إلهي بمهدس كله ما أنت أدمع حنو سناسا كمشيقة تجنين وحنس لها أمو كورونا كهايا مدح أدل إيجا هاي حافظنا كورونا بدنا كجرو مكحنس لها أمو كورونا يا مدح أدل إيجا جركة وانكدا لنا dabcan laakiin sonkorteeda ayay ahayd marna sonkorta ay dhacaysa ilaa shalay marna ay daciifaysay walaalayaal wada jeedaan dhibaatada aan ku jiro oo socialku igu hayo qowmuluudnimada
ilmahayga lagu tarbiyeynayo oo subxaanallah cunug yar oo 5 sano jiro oo aan joos lahayn waxaa lagu leeyahay saa joos gareystay socialki marka u yeertay oo tirana bal arag naagta cunugayga wadata waxan ay ku tarbiyeynayso cunugaygi codkoodi waa haya waxan ay cunugayga ku tarbiyeynayso fiiri marka tiraado waxay ku leedahay waa sax Austria ka jirta maxaa u joogta Austria dad dhaqankeeda qaadanayna aniga Austria dhaqankeeda ma qaadanayo aniga ilaahay dhaqan u siiyay alxamdulillah ilaahay diin u siiyay diinteeda waa kana wax xijaabkeyga ilaahay dhaqan u siiyay dhaqankeyga waa kana wax xijaabkeyga marka ma yeelaya qowmuluudnimo ma yeelay waa wax aniga la iigu talagalay waa wax aniga lagu doonay in maskaxdeeda damage lagu gaarsiiyo waa wax lagu doonay aniga in dhibaato lagu gaarsiiyo waa wax aniga lagu doonay sonkoraan qabaaye in sonkorteydu kacdo waa wax lagu doonay aniga caafimaad xumo inta igu dhacday meeshii shalay aan kasoo kacay isbitaalka aad inaan dib ugu noqdo isbitaalka dan dib ugu noqdana waan ogahay waxa iga horeeyo isbitaalka iga horeeyo marka walaalayaal horta aad iyo aad baan idin salaamaya please waxaan ka codsanaa channelka taa ku cusub tahay subscribe dheh furo gambaleelka si markasta wax kasta oo aan soo geliyo aad ula socoto aadan ogeyn dhibaatada qurbaan lagu haysato aadan ogeyn si aad ula socotid haddaad hooyo Soomaaliyeed tahay haddaad hore iila joogto aad baa u mahadsantahay laakiin please waxaan ka codsanaa clipka dhameyso sina share gare like gare share gare inta WhatsApp kugu jirto u dir inta Facebook kugu jirto u dir inta maxay ahayd Facebook caadiga ah kugu jirto share gare Facebook ku share gare aad ba u mahadsantiin ilaahay horta waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala aniga iyo inta ubadku ka maqan yihiinba in ilaahay culayska ka qaado ubadkoodna ilaahay u soo celiyo anigana saddexdayda cabdi gurigeyga ilaahay ku soo celiyo waa wiilkayga kow Cabdi Xaafid wiilkayga labaad Cabdi Shakuur oo dhibaatada asaga iga haysato Cabdi Shakuurna in ilaahay qalbigiisa ii soo jeediyo walaalayaal igu soo duceeyo iyo wiilkayga Cabdiraxmaan caruurteeda u yar okay waxay haysato dhibaato badan waxay haysto walwal badan waxay haysto xanuun badan walaalo waxa jiro hadda channelkayga ku soo biiray inta badan channelkayga waxa jiro dad dhowrkii bilood u dambeeyay aad ugu soo biirayay oo markaan ugu yarnahay bishii ilaa 3,000 4,000 oo qof baan ugu soo biirto saa u ogtiin markii hore 10,000 baan joogay markii 3 bilood aan joogay haddana channelka wuxuu furayay bishii afraad sanadka uu buuxsamaya hadda January yaa lagu jiraa already wuxuu jiraa 9 bilood bisha dambe 10 bilood noqonaya bili u dambeeyay hadda dadku aad bay ugu soo biirayaan channelka marka waxa jira dad badan oo way arkayaan anoo hadlayo ama anoo cabanayo laakiin aan fahansanayn maxaan ka cabanaya walaalayaal horta aan iskiin baro Xafsa Axmed Soomaali dhaha waxaan joogaa dalka Austria waxaan ahay hooyo dulman waxa la iga qaatay 3 ubad laba waxa la iga qaaday cunug asoo sanad iyo 9 bilood jira cunugayga koowaad aan haystay sanad iyo 9 bilood buu jiray markii la iga qaaday wuxuu dhashay 2014 bishii 10keedii waxa la iga qaaday 2016 bishii 7 bishii 7 la iga qaaday okay sanad iyo 9 bilood uu jiray Cabdi Shakuur markii la iga qaaday wiilkayga labaad oo wiilkaas ku xigo wuxuu jira 11 cisho oo kaliya wuxuu dhashay 26 bishii 6 7 bishii 7 waa la iga qaaday 11 beri oo bisa uu jira 11 maalmood oo kaliya ayuu jira okay subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakiil la hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim okay maxaa sabab waa in ilmeyga laga qaado ilmeyga waxa sabab waa in laga qaado nin Soomaaliya oo Soomaali iyo Yemen iska dhaleen hooyadiisa Soomaaliyeed asagana waa Yemen oo dukaan ii dhow leh ayaan wacay waxaan ku yiri xawaalad buu hayay wala lacag iga dir wuxuu yiri shaqan ku jiraa kaama soo gaari karo haye iga soo doon ka lacagta qaado iga dir lacagta maya abaayo ma ka diri kari shaqan ku jiraa shaqana waa u cararaya isaga markuu turjubaan shaqana waa u cararaya iga soo gaar haye way ma ilaa imisa ayaad joogaysaa ilaa iyo adigu 3 dukaanka oo joogay ilaa 3 ma dukaanka joogaysaa oo ma iga soo doon dukaankiisa gurigeygana waa daris dabcan may dhicinin waxaan ku yiri ilmaha ayaan soo seexinaya cunuga weyn ayaan soo seexinaya qadi iyo sharaab iyo wax siinaya seexinaya kan yarna waa soo seexinaya oo ku imaanaya 5 daqiiqo muddo taqriiban 10 daqiiqo inta soo socday baa maqnaa ninkii wuxuu ii wacay socialka kuwa ilmaha qaatay waxay sameeyeen taxi ay soo qaateen gurigeyga dhinaciisa ay fariisteen ani guriga waa ka baxay
استراسة بانكا طبنكا استراسة حافظ شن تبرد وحيد دقن فيانا أي قانا استراسة بان طبنكا مركورجي قلنا عيسى مراي ما دام يوهان استراسة لنا عس عند جنا لنا هوتل دوف أنت اللي قال يوهان استراسة طبنكا استراسة بان طبنكا أو هوتل دوف الصعدة مركي قرجي قدر كيس مرة قرجي قلنا عسن آجا بس كطبنكا كمرة يعني ودد وين أو أسجي يعني جنور حيسنا وحوايتي أو بانكا ترين كل كوستي سمراي adigu dukaankii baan tagay naagu Straas Bank meeshiisa ay fariisteen dukaankii baan tagay markii aan tagay oo dukaankiisa u istaagay way soo koreen gurigeyga soo koreen guriga xiran bay yimaadeen albaabka istaageen private number bay soo waceen waxay igu yiraahdeen xageed joogtaa for bisto faro Axmed xageed joogtaa hoosan joogaayo kulay ishaarada ilaa hadda Ilaahay badbaadiyaa ma had u sugnaatay inay xirnadeena furnad ma xasuusto gurigii xilli aan imaaday ma xasuusto hooyaan ahay 12 bariyaan dhalanay ilmahay gurigan ku soo xiray social bay soo wac socialkii aan lagu yiri intii joogta gurigaagan joogna faro Axmed guriga imi furba lagu yiri albaabkii baan furay albaabkadan furay labadeeda cunug midna sariirta weyn buu saaran yahay oo mukayf baa u shidan qolka jiifka midna sariirta yar buu ku jiraa oo mukayf baa u shidan isla qolka jiifka wada jiifaan labadeeda weyn kabii baa la ila soo galay wixii dhan baa la ila soo galay kabaa iga bixiyay ma bixinayna la yiri haye waa la qayli hay ugu qaylina banaanka tag يكروف عن بوليس سهل يقول بوليس أنكوا عنا إيه وعن كده بوليسك لكن ما نكتب هاي وقايلين مو أوجين أنا يجرى على هذا حدي أنكوا حري مو أوجين ماشان بنتجي مال دير متجين المي ما قايلنا يعني المي مو أوينيان المي واجيفان اللي بعتك لما يجر تقول قد بكمشيبنا وحمد جيران رالي هذا ما يلي يقول بوليس بالوتي كيس بالي سو قرت بدل بس عدد على مقنع مركز 6 ساعة الربع رواية 9 عشان 8 دقيقة بوليس بالوتي waxaa la soo noqday 4 galabnimo markii abbaare xilligan aan hadda joogo 4 galabnimo oo galab khamiis ah booliska xaafadda 15aad aan deganaa degan oo dhan baa yimi gurigeyga la iska buuxiyay sidii shalay kilibkii aan soo dhigay shalay oo gabadha ilmaha laga qaadanay madowga ahayd gurigii qolka jiifka iyo kii fadhiga iyo qadadii iyo musqushii iyo wixiiba boolis baa xirtay sas baa la guriga intii aan boolisku guriga gudaha u soo gelin baa Cabdi Xaafid bay daba socday Cabdi Xaafid la igala cararay aniga waan qayliyay waan stressay hooyaan ahay hooyo yar baan ahaa xilliga aan hadda joogo ma ahayn waa 5 sano iyo 7 bilood ka hor 5 sano iyo 7 bilood ka hor aad baan u yaraa waa 6 sano ka hor ilmo yar baan ahaa aad bay xanuun badneed markii aan ka sheekeyn aad bay xanuun badantay markii ugu dhacaysan aad bay xanuun badan tahay anyway way ugu dhacday labadaas wiil saas la iga qaaday 3 sano iyo barka bacdi 2016 bishii 7 2019 bishii 12 bishii u dambeysay 2019 12 bishii 12 baan cunug dhalay isbitaalka weyn baa cunug la iga dhex qaatay cunug markii saas la iga soo saaray miiska aan ku dhalay anoo saaran xudunta loo jaray waa la iga la cararay asaguna 2 sano iga maqayeen markii walaalayaal waxaan idinka codsanayaa oo si naxariis la idinka codsanayaa oo si Soomaalinimo ku jirto idinka codsanayaa oo ragga Soomaaliyeed kama codsanaa hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan kilibkayga ina soo ducaysaan si niyad ah in ay u soo ducaysaan qof kasta oo salaad tukana inuusan ilaawin haddii xaamilaan ahay caloosha waxaan ku sidaa cunug kale ma ogi in la iga qaadanay in kale dhibaato badan ba Soomaalida dhexdeeda iga haysato maxay u dhalaysaa hadda laga qaadaya maxay kuwii hore u soo celin weyday maxay u xamaalaysaa ma iska seexato ninku waa alkuleyste wax aanan u joogin waqtina aanan u haynin aanan mudnayn in la igu yiraahdo nolol baan la jihaadaya xanuun badan dharkan oo u jeedaan waan qabaaye haddii qalbigayga intii la jeexo saa intii iyadoo sanadihii u dambeeyay